kulan balaaran oo aan loo kala harin ayaa jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Toronto iyo nawaaxigeeda lagu qabtay hoolka shirarka ee Hotel Sheraton ee magaalada Toronto kaasoo lagu taageerayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre iyo mahadcelin loo jeedinayay xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo sida aqlabiyadda leh codkooda u siiyay ansixinta magacaabista ra'iisul wasaaraha xukuumadda. kulankani oo ay goobjoog ka ahaayeen dhammaan qaybaha kala duwan ee jaaliyadda Soomaalida ayaa waxa hadallo taageero iyo duco isugu jiraba ka soo jeediyay qaar ka tirsan mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay kulankaasi oo dhammaantood duco dardaaran taageero iyo talooyinba u soo jeediyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre. ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre waa soo dhaweynaynaa waana taageeraynaa. Prime Ministerka dhalinyarada ah waxaan u malaynayaa yadadiilo iyo rajo wanaagsan ayaana galaysa. waa soo dhaweynaynaa Xamse magacaabistiisa. ra'iisul wasaare Xamse waa soo dhaweynayaa ilaahay waxaan ugu rajaynayaa xilka uu qaaday in ilaahay ku guuleysiiyo. taageerista wasiirka koowaad mudane Xamse Cabdi Barre inaan halkaan ugu duceyno ku taageerno si ilaahay ugu fudeeyo hawsha adag uu qaban doono. intaasi kadib waxaa khadka telefoonka kula hadlay jaaliyadda Soomaalida ee Toronto ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ugu horeynba uga mahadceliyay taageerada ay u fidiyeen magacaabistiisa iyo sida goor walba shacabka Soomaaliyeed ee reer Canada u garab taagan yihiin dawladooda iyo dib u dhiska dalkooda hooyo. waxaan idinka mahadcelinayaa xafladda iyo runtii soo dhaweynta iyo karaameynta Allah idin karaameeyo aad iyo aad baad mahadsantihiin. guud ahaan reer Canada waan idin wada salaamayaa. waan ku faraxsanahay inaad maaragtay runtii aan idinla hadlo. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. dalkeenna runtii maanta meel fiican buu marayaa alxamdulilah. waxaan rabnaa oo keliya waxa weeye in aan dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaan inay isku xidhmaan. midnibaan doonaynaa inaad midowdaan baan rabnaa. one community inaad ahaataan baan rabnaa. waxaan rabaa in aad wadamada aad joogtaan dabcan meelo fiican aad ka gaarteen sharaf aad ku leedihiin. waxaan runtii aad iyo aad idinku hambaleynayaa Canada oo kale oo aan ognahay annagoo shalay tagnay oo waqti dhow tagnay haddana in madowgii hore iyo dadyoogii hore sii joogay meelo ka fiican inaan joogno. firfircoonida dadka Soomaalida ayaa asal oo saas loo yaqaanaa. Muxudiin Jaamac, telefishinka qaranka Soomaaliya, magaalada Toronto.